qisadu waxay ku bilaabatay diyaarad duulimaad ah oo lagu magacaabo Dekan Air. wakhtigaas duuliyuhu waxa uu la xidhiidhay madaarka ugu dhow si uu si degdeg ah ugu soo dego, sababtoo ah shidaalka ayaa ka dhammaan raba. balse nasiib daro, ciidamada madaarka way diideen una oggolaan waayeen diyaaradda in ay si degdeg ah u soo degto. waxaa dhacday in si lama filaan ah qof uu telefoonka ka qaato ilaalada taawarka, oo ninka magaciisa lagu sheegay Mara wuxuu ku amray duuliyaha inuu ku soo dego meel u dhow ciidamada cirka. kadib markii Mara uu la cararay saaxiibkiis oo mooto watay, waxay u jihaysteen dhanka saldhigga ciidamada cirka, iyadoo ay xaaladdu tahay mid aad u adkeed. diyaaradda ayaa waxa ay noqotay mid fowdo ah kadib markii uu shidaalkii gebi ahaanba ka dhammaaday. ciidamada waxa ay la yaabeen diyaarad si lama filaan ah ugu soo degtay. Mara waxa uu sii wataa mootadii, waxa uuna jebiyey heerka ilaaladii ciidamada si uu u gaaro diyaaradda, balse nasiib daro duuliyaha ayaa suuxsan, sababtoo ah dhaawac halis ah ayaa soo gaaray. wax yar kadib markii Mara uu soo gaaray diyaaradda, wuxuu ka walwalay xaaladda Shia. laakiin daqiiqado kadib askartii ayaa u yimid oo way garaaceen wayna xidheen, maadaama Mara uu diyaaradda halkaas ku dejiyey isaga oo aan fasax ka haysanin ciidamada. sheekadu waxay dib ugu soo noqotay 6 sano. gabadh magaceeda la dhaho jiray Sundari iyo qoyskeedu ay saarnaayeen tareen duug ah, oo Sundarina ay tahay mid hadda ka hor 20 nin diideen oo hadda ka hor loo soo doonay. maalintaas iyada iyo qoyskeedu waxay la kulmi doonaan ninkii 21-aad. inta ay safarka ku jiraan dhammaan qoyskeedu waxay ka cabanayeen tareenka sida uu u soo uraayay, kuraastiisana adag yahay. waxay soo gaareen magaaladii loo socday. kadib waxaa soo baxday in ay jirto keliya tuuladaas oo degan dad masaakiin ah. gabadhii ayaa waxa uu yimid nin Mara la yidhaahdo, waa ninka 21-aad ee lagu lamaanin doono Sundari. Mara wuxuu yidhi waxba kama qabo, laakiin wuxuu ku riyooday inuu sameeyo shirkad diyaaradeed. Sundari waxay tidhi 20 nin ayaan diiday sababtoo ah cunto kariska ma yaqaanaan. sidoo kale waxa ay rabtay in ay furto dukaan lagu iibiyo keega. wax yar kadib markii qoyska Sundari ay casho ugu soo bandhigeen qoyskii Mara, miiska cashada qof walba waxa uu ka hadlayay diyaarado. Mara waxa kale oo uu sheeko dheer la yeeshay Sundari, waxay ku sheekaysanayeen riyooyin kala duwan. Mara oo arkay Sundari dhaqankeeda, garaadkeeda iyo naxariisteeda, kadib Mara ayaa u soo bandhigay in uu guursado. si kastaba ha ahaatee, Sundari waxa ay u baahnayd waqti si ay uga jawaabto. habeenkaas qoyska Sundari waxa ay ku hoydeen guriga Mara iyo Sundari ayaa midba midka kale uga sheekeeyey waxyaabaha uu soo maray. Mara waxa uu sheegay in tuuladiisu ay aad u liidato xitaa tareennada. intaas kuma joogsan, taas oo keentay in dadka tuuladu ay meel walba u safraan. aabbaha Mara waxa uu ahaa macallin, waxa uu inta badan warqado badan u qori jiray dowladda, isaga oo ka codsanaya in ay tareenka ku joojiyaan halkaas. si kastaba ha ahaatee, dowladdu marnaba dheg jalaq uma siin warqadda. Mara ayaa bilaabaya in ay koraan. waxa uu horay u sii maray isaga oo isticmaalaya habkiisa oo uu mudaharaado, laakiin waxa ayna inta badan ku dhammaata rabshado. mudaharaadkooda waxaa hor istaagay saraakiishii deegaanka. Mara oo xilligaasi qiiraysan uu dhagax ku tuuray gaadhiga ayaa mid ka mid ah mudaharaadayaasha ku dhacay. Mara oo soo gaadhay guriga aabbihii oo aad uga cadhooday habdhaqanka mudaharaadka, Mara ayaa sheegay in uu sidaas u sameeyey si xaaladda tuuladoodu ay wax iska beddesho. xaaladdu way ka sii daraysay ilaa ugu dambayntii aabbihii wuu xanaaqay oo dharbaaxay. markaas ayuu aabbihii sheegay in haddii uu maalin dhinto Mara laga mamnuuci doono in uu gubo meydkiisa. wakhtigaas Mara wuxuu ka baxay gurigii wuxuuna go'aansaday inuu ku biiro ciidanka cirka. sheeko gaaban, marakaas oo ku howlanaa nolol maalmeedkiisa, iyadoo nin ciidan ah uu damcay inuu warqad u diro qoyskiisa. balse aabbihii weli sidii ayuu ahaa, warqaddii ayuu iska tuuray. Mara hooyadiisa ayaa isla markiiba weydiisay warqaddii oo ay si kor ah ugu akhriday. tababarkii uu si toos ah ugu qaatay, tababar aad u culus oo uu hal mar qaatay. wuxuu helay taleefan 3 daqiiqo ah. markaas ayuu wacay qoyskiisa, balse markii uu aabbihii damcay in uu la hadlo ayuu taleefoonku kala go'ay oo xiriirkii ka go'ay. Mara aabbihiisa waa uu niyad jabay, wuxuuna u maleeyey in wiilkiisu uu weli ka xanaaqsan yahay isaga. dhanka kale, Mara waxa uu damcay in uu dib u waco qoyskiisa, balse daqiiqadihii wicitaanka ayaa dhammaaday. aan dib ugu noqono sheekada. Mara markii uu la hadlayay Sundari wax yar kadib ayaa qoyska Sundari ay u yimaadeen inay soo kaxaystaan Sundari, sababtoo ah xilli dambe ayay ahayd. maalintii xigtay, Mara waxa uu jawaab ka sugayey Sundari in ay ka aqbasho in ay isguursadaan iyo in kale. Sundari waxa ay sheegtay inay ka aqbali weyday, taasina waxa ay keentay in qoyskeeda ay aad uga naxaan. Mara ayaa weydiiyey sababta ay Sundari u diiday in uu guursado. waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in marka hore ay riyadoodii rumoobaan, kadibna ay isguursan doonaan muddo aan dheerayn. kadib, Sundari iyo qoyskeeda waxay ka tageen guriga Mara. tani macnaheedu maaha Sundari inaysan jeclayn Mara. Sundari ayadaaba ugu horraysa jacaylka. labadoodaba waxay ka shaqeeyeen inay riyadoodii rumeeyaan, wuxuuna Mara ku dhibtoonayay agagaarka bangiga si uu u helo amaah. laakiin mar walba waa loo diidi jiray. 3 sano kadib guurgooda,
mara wuxuu u soo baxay inuu soo raaco diyaarad si uu ula kulmo Bareesh Goswami, qof uu aad ula dhacsan yahay. Bareesh waa milkiilaha diyaaradda Jazz Airlines. Mara waxa uu garoonka kula kulmay naag lagu magacaabo Sidra oo ah wariye. Sidra ayaa Mara u sheegtay in uusan awoodin in uu la kulmo Bareesh, maadaama uu yahay qof caan ah oo ay adag tahay in la helo. Mara ayaa ku jawaabay hadalka Sidra isagoo tusay tigidhka kulanka ganacsiga ah oo uu damacsan yahay inuu halkaas kula kulmo, inkastoo tigidhka qiimihii baa ka baxay akoonkiisii bangi. Diyaaradda dhexdeeda Mara wuxuu arkay Bareesh oo hortiisa fadhiya. Wuu sii socdaa si uu ula hadlo Bareesh. Nasiib wanaag, Bareesh wuxuu ogolaaday inuu dhagaysto. Mara wuxuu bilaabay inuu sharaxo riyadiisa ah inuu dhiso shirkad diyaaradeed oo dadka saboolka ah ee Hindiya ku duuli karaan, laakiin dadka oo dhan way ku qoslay isaga. Mara mar kale wuxuu sharaxay in aan loo baahnayn in la maro wakiilka safarka si loo raaco diyaaradda, sababtoo ah taasi waa waxaa qiimaha tikidhada ka dhigaya mid aad qaali u ah. Mara wuxuu soo jeediyey iibsashada tikidhada internetka iyada oo la adeegsanayo internetka iyo xafiisyada boostada ee gobol kasta. Bareesh aad ayuu ula yaabay fikirka Mara, laakiin wuu diiday. Ma uusan doonayn in xamaalida iyo dadka saboolka ah ay raacaan diyaaradiisa. Markii dambe Bareesh wuxuu amar ku bixiyey in Mara loo wareejiyo kulanka dhaqaalaha, laakiin dabcan Mara wuu diiday, sababtoo ah wuxuu iibsaday tigidhka kulanka ganacsiga ah. Bareesh isagoo wax u sheegaya mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Muddo aan dheeray kadib, duuliyuhu si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu rogrogi doono diyaaradda cilad farsamo awgeed. Ugu dambayntii Mara wuxuu ka soo degay diyaaradii. Mara isagoo jooga madaarka wuxuu la kulmay nin rakaab ah oo lagu magacaabo Barkash Babu oo ay soo jiiteen. Fikradiisa diyaaradda ayaa sidoo kale maqaaxi ay ku sheekaysteen. Wuxuuna Mara mar kale sharaxay fikradiisa waalida ah ee uu ku abuurayo diyaarad qiimo jaban oo dadka Hindiya. Ugu dambayn Barkash waxa uu go'aansaday in uu la midoobo Mara. Run ahaantii Barkash ayaa ka codsaday si uu u yimaado xafiiskiisa bisha soo socota. Maalintii xigtay Mara waxa uu aaday dukaanka keega lagu iibiyo ee Sundari si uu ugu wargeliyo in uu si guul leh uga soo gudbay tilaabadii ugu horreysay. Dukaanka Sundari ayaa u muuqda mid aad u horumarsan, balse waxa ay u sheegtay in ay xaas tahay ayna leedahay 2 carruur ah. Mara oo maqlay arrinkaas oo u muuqday mid xanaaqsan, laakiin sida muuqata Sundari been u sheegtay Mara. Markii Sundari ay iibinaysay keega, Mara ayaa mar labaad u soo dhowaaday. Mara waxa uu damacay in uu guursado, waxa ayna ugu dambayn ogolaatay in ay guursato jacaylkii qarsoonaa muddo 3 sano ah. Ugu dambayn waxaa la gaadhay maalinta arooska. Dadka oo dhan waxay u muuqdeen kuwo faraxsan, gaar ahaan Mara iyo Sundari oo si rasmi ah u noqday nin iyo xaaskiisa. Wax yar kadib Mara wuxuu aaday xafiiska Barkash Babu si uu gala hadlo qorshihiisa. Mara wuxuu bilaabay si uu u sharaxo in uu damacsan yahay in uu kireeyo diyaarad oo aanu iibsan. Waxa uu hubiyey in qorshahani uu u badan yahay in uu guulaysan doono. Inkasta oo markii hore dadka halkaa ku sugnaa ay u muuqdeen aan ku raacsanayn, haddana ugu dambayn waxay aqbaleen inay la shaqeeyaan Mara. Barkash ayaa ka codsaday in uu siiyo 4 lookis si uu u dalbo diyaaradda sida ugu dhaqsaha badan. Mara wuxuu bilaabay inuu raadiyo lacagtaas. Mara hooyadiisa waxay amaahday lacag waxayna keentay dokumentiyada dhulka qoyskeeda oo damaanad ahaan. Intaas oo keliya maaha, sidoo kale waa inuu ogolaansho ka helaa agaasimaha guud ee duulista oo lagu magacaabo Anna. Mara ayaa saacado sugay, laakiin lama soo wicin ilaa galabtii. Agaasimaha guud waxa uu ka codsaday Mara in uu mar kale u soo laabto. Maalinta xigta si la mid ah shalay, Mara weli lama soo wicin. Agaasimaha guud mar kale u sheegay in uu yimaado maalinta xigta. Sidaas darteed Mara waxa uu dareemay in la iska indha tiray. Waxa uuna go'aansaday in uu si fool ka fool ah ula kulmo madaxweynaha. Isagoo kaashanaya weriye uu kula kulmay diyaaradda ayaa ugu dambayntii Mara u suurta gashay inuu la kulmo madaxweynaha. Waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sababta dhabta ah ee uu u doonayay shirkad diyaaradeed oo jaban oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah ee Indiya ku nool. Ayaa waxaa soo baxday inay ka dambayso sheeko xanuun badan. Waxaa jirta qiso aad u murugo badan. Aan dib ugu noqono waagii hore, mar uu weli ahaa askari ka tirsan ciidamada cirka, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo wacday hooyadeed oo sheegtay in aabbihiis xanuunsanayo. Hooyadii ayaa ka codsatay inuu si degdeg ah guriga u yimaado, sababtoo ah muddadaas oo dhan aabbihiis wuxuu u dulqaadanayay si cadaalad ah. Si uu u arko Mara oo guriga ku soo laabanaya, waxa uu u soo orday dhanka madaarka, balse madaarka waxa uu la kulmay dhibaato. Wakhtigaas tigidhkii heerka dhaqaalaha ahaa waxaa ka soo hadhay oo ahaa tigidh ganacsi, balse lacagtiisu kuma filna in uu ku iibsado tigidh ganacsi oo heer sare ah. Kadib si degdeg ah ayuu damcay in uu dayn ka helo madaarka. Waxa uu u ekaa qof waalan, balse dadkii madaarka joogay ayaa iska dhiga tiray oo cid danaynaysa ma jirto. Waxa uu ku dhammaaday in ciidamada ammaanka madaarka ay ka eryaan. Isaga oo aan haysan dooq kale ayuu dib ugu laabtay magaaladiisii. Bas uu saarnaa wakhti aad u dheer ayaa dhanka kale aabbihii ayaa xaalad dhimasho ku sugan. Markii uu guriga yimid waxa uu ogaaday in gurigiisii ay dadku isugu soo baxeen, waxaana soo baxday in aabbihii uu dhintay. Mara hooyadiisa way niyad jabtay, waayo wuu yimid balse isagoo aabbihiisa nool muusan imaan. Xataa hadalkii aabbihii ayaa rumoobay, maxaa yeelay Mara ma shidin karin dab uu ku gubi karo meydka aabbihiis. Hooyadii waxay akhriday warqaddii uu aabbihii ka soo qoray hortiisa. Eray kasta oo halkaas ku qoran waxa uu u ekaa mid qalbigiisa gubayay.
sababtoo ah waxaa soo baxday in wakhtigaas oo dhan aabbihiis aad buu u hanweynaa una jeclaaday. Qisadan murugada leh darteed Maara aad buu u dadaali doonaa si aysan dhibaatadan dadka kale ugu dhicin. Madaxweynihii ayay taabatay sheekadii Maara. Ugu dambayn wuxuu ka caawiyey nidaamka yaraynta qarashka. Aanan isagoo cagajiidanaya ayuu u saxiixay ogolaanshaha. wax yar kadib diyaaradda Mahrez waxaa la bilaabay in la nashqadeeyo oo loo bixiyo magaca Dekan Ayer. Markii diyaaradda marka ugu horreysay lagu waday in la duuliyo ayaa dhibaato kale soo food saartay. Iyadoo ay soo baxday. Barakash waa nin qaali ah oo nin halis ah oo si badheedh ah loogu soo diray si Maara uu meeshan uga fogeeyo. Kadib markii uu ku guulaystay inuu helo ogolaansho dhammaystiran ee duulimaadku, wuxuu sameeyey xeerar cusub iyada oo loo marayo maareeyaha guud ee shati bixinta. Xeerku wuxuu dhigayaa in duulimaad kasta uu bixiyo naqshad maareeyaha guud ee duulista. Shirkadii diyaaradda ka kiraysay diyaaradda Maara ayaa dib u soo ceshatay diyaaradooda, sababtoo ah cunaqabateyn lagu soo rogay in aysan awoodin in ay muujiso naqshadda. Hadda Maara ma lahan diyaarad, dhab ahaantii waxa uu damaanad ka qaatay dhammaan hantida waalidkiis oo ku degay gurigiisa. Maara isla markiiba wuu ka soo horjeestay, laakiin faa'iido kama helin, sababtoo ah anan dan kama laha. Maara ayaa laga soo eriyey xafiiskii. Isagoo xanaaqsan wuxuu u yimid inuu burburiyo. Ilaalada ayaa u yimid si ay gacanta ugu dhigaan, kadib bannaanka ayay u soo saareen. Isagoo socda ayaa wuxuu dabaqa labaad ka arkay Bareesh oo isaga eegaya. Maara ayaa bilaabay inuu ka soo muuqdo quusitaan. Guuldarooyinkiisa oo dhan ayaa noqday mid xaaskiisa kala dagaalama. Iyadoo la og yahay in Sundari ay weligeed garab istaagi jirtay, waana qofka keliya ee aad u huba in ay maalin uun riyadiisu rumoobi doonto. Wakhtigu wuu socdaa, oo Marara weli wuu ka murugaysan yahay wixii soo maray. Waxa uu gartay in uu aad uga fogaaday xaaskiisa, kadibna waxa uu isla markiiba raadiyey xaaskiisa oo uu ka raaligeliyey. Sundari xataa Sabraayis ayay u sheegtay, waxay ku tidhi inay uur leedahay. Maalintii dambe Maara waxaa ku soo dhacday fikradda ah in uu diyaarad xamuul ah ka dhigo diyaarad caadi ah. Waxa uu qorshaynayaa in uu isticmaalo diyaarad yar si uu shidaal u kaydsado, balse dhibka hadda jira ayaa ah in aanu haysan lacag uu ku sameeyo diyaarad. Maara sidoo kale waxa uu lacag ka soo amaahday Sundari iyo isaga adeerkiisa. Si kastaba ha ahaatee, lacagtaasi weli kuma filna. Nasiib wanaag dadkii tuulada ayaa ku deeqay hantidoodii si uu Maara uu isla markiiba u bilaabo duulimaadkiisa. Si kastaba ha ahaatee, diyaaradda Dekan ayaa mar kale dhibaato soo food saartay. Raadaadka oo inta badan uu maamulo Bareesh ayaa ka mamnuucay diyaaradaha Dekon in ay ku soo degaan dhulkooda. Balse Maara ma niyad jabin, waxa uu samaystay jihada diyaaradda oo uu isticmaalay madaarka dheer ee laga tegay ee Indiya. Maara qorshihiisa waxa uu si tartiib ah u bilaabayaa in uu iska bixiyo waxa uu tikidhada ku iibinaya internetka. Waxaana uu la kaashaday tareennada. Ugu dambayn duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda Dekan waxaa la xaqiijiyey. Nasiib darro. Markii duulimaadkeedii bilowday, shidaalkii ayaa faaruq ka noqday, laakiin Bareesh ayaa ku amray ATC in ay diidaan in diyaaradda ay degdeg ku degato. Markaas ayaana loogu soo celiyey goobtii bilowgii sheekada oo qorshuhu ahaa. Diyaaraddii waxay gashay xaalad degdeg ah. Maara ayaa lagu qabtay xarunta ciidanka cirka. Qofka kiiska la wareegayna wuxuu ahaa Nidu, Maara hogaamiyihiisii hore markii uu ciidanka cirka ku jiray. Nidu waa askari daacad ah. Bareesh ayaa Nidu ka codsaday inuu Maara ciqaabta marsiiyo, balse Nidu wuu diiday. Sheeko gaaban. Taariikhdu markay ahayd 16 Agoosto 2003, kadib markii ay soo mareen hab aad u adag. Diyaaradda Dekan ayaa duuli doonta, waxaana loo daahfuray diyaarad ganacsi, kadib markii wax walba ay diyaar ahaayeen. Maara si aamusan u fadhiistay isaga iyo rakaabka kale. Mar kale diyaaradda Dekan ayaa dhibaato soo wajahday. Markii ay ku dhoweed inay kacdo ayaa waxaa soo gaaray burbur ka soo gaaray garabka diyaaradda, taasoo keentay in dhammaan dadkii saarnaa ay argagaxaan. Markii ay arkeen xaaladda oo sii cakiranaysa ayaa durbadiiba gudaha u galay qolka duuliyaha oo ay la wareegtay. Nasiib wanaag diyaaradii Maara waxaa u suurta gashay in ay istaagto. Ra'iisul wasaaraha oo markii hore gacan ka geystay mashruuca Maara ayaa go'aansaday inuu ka tago. Maara waxaa sidoo kale soo weeraray kumanaan su'aalo ah oo ay weydiiyeen saxafiyiinta oo looga shakisan yahay inuu iska indhatiray amniga caalamiga ah, isagoo si jaban u iibiyey tikidhada. Markii uu dareemay guuldarooyin iyo rajo la'aan, Maara ayaa hadda xoogaa faraxsan. Sababtoo ah xaaskiisa ayaa hadda u dhashay gabar. Maara markiiba waxay baartay sababta ay diyaaradda u qaadi weyday. Ayaa waxa uu helay qof si ula kac ah u dayacay inuu shidaal ku shubo. Qofkaas waxa uu ahaa Mahoner oo uu Bareesh laaluushay si uu u fashiliyo duulimaadka. Sababo la xidhiidha dhacdo halis gelin karta dad badan waa in ay aqbalaan xaqiiqada qalafsan ee dadku aanay hadda rumaysnayn, iyaga oo aaminsan in tigidhada diyaaradeed ee jaban aanay damaanad qaadayn badbaadada rakaabka. Hindidu waxay ka baqayaan inay fuulaan dushooda diyaaradaha Maara, kaas oo si isa soo taraya quus uga qayliyey si uu u sii daayo wixii uu lahaa. Waxa uu dareemayey hadda in uu wasiirku dayacay. Sidaas darteed waxa uu bilaabay in uu raadiyo maalgashadayaal cusub, kadibna waxaa jira maalgeliye doonaya inuu la shaqeeyo. Si kastaba ha ahaatee, si cad ayuu u diiday. Sababtoo ah maalgeliyuhu wuxuu rabay in tigidhada lagu iibiyo qiimo sare. Ficilkiisii uu ku diiday fursadda weyn waxaa ka hor yimid asxaabtiisa ugu wanaagsan. Aad bay u niyad jabeen sababtoo ah wuxuu rabay inuu ka tago militariga keliya si uu u rumeeyo riyada Maara, balse hadda waxba ma helin oo waxa uu hoos ugu dhacay idaacad ay leedahay Sidra.
maara oo daaha ka qaaday dhammaan dembiyadii bareesha waxa uu yidhi bareesh waa nin taajir ah oo ka baqaya in masaakiin ay la duulaan waxa uu sidoo kale qiil ka bixinayaa si riyada maara u rumowdo laakiin ma dhicin inkastoo ay dhacdadan oo dad badan ay maqleen balse bareesh ayaan ka aamusin waxa uu sheegay in diyaaradaha qiimaha jaban aysan dammaanad qaadi karin badqabka dadka rakaabka ah halka muhiimadda ay leedahay shirkadaha duulimaadka ay tahay badqabka iyo ammaanka rakaabka doodii ayaa dhex martay si aysan dadweynuhu u kala saarin mid sax ah iyo kan khaldan ilaa ugu dambayntii maara uu go'aansaday inuu kalsoonida shacabka soo celiyo wuxuu diyaaraddiisa deekan saartay saddexdii qof ee uu jeclaa waana hooyadiis xaaskiisa iyo inantiisa isagu xitaa ma seexdo si uu u ilaaliyo diyaaradda sababtoo ah waxay keeni kartaa dhimasho haddii bareesh uu dib haleeyo nasiibka ayaa bilaabay berrito wuxuu la kulmay niiduu iyo ciidamadooda cirka oo diyaar u ahaa si ay u ilaaliyaan diyaaradda deekan kadibna 25 Agoosto 2003 waxay noqotay maalin taariikhi ah ee diyaaradda deekan maara wuxuu keenay qoyskiisa isaga oo sidoo kale sugaya rakaabka kale laakiin nasiib daro ma jirto cid u timid markii ay damceen inay joojiyaan duulimaadkooda si lama filaan ah ayaa u yimid saaxiibkiisa waxaa lagu wargeliyey maara in codsiga goosashada tikidhada ay dhibaato ku qabeen xaqiiqdii tikidhada diyaarad deekan ayaa la iibiyey tani waxay muujinaysaa in kalsoonida shacabka ay ku qabaan diyaaradda deekan ay weli aad u weyn tahay diyaaraddii si fiican ayay u duushay oo si nabad ah u degtay iyada oo aan dhibaato yar soo gaarin maalintaas riyada maara way u rumowday wuxuu awooday inuu masaakiinta u kaxeeyo si uu ula duulo diyaaraddiisa xaaladdu waxay noqonaysaa mid aad u qiiro badan markii ayeeyo uga mahad celisay maara maadaama uu diyaaraddiisa saaray maara aad ayuu u faraxsanaa dib ayuu u arkay hooyadii oo la soo degaysa sawirka aabbihiis markaasay hooyadii islamarkiiba isku duubtay sida ay ugu faraxsan tahay in ay aragto riyadii wiilkeeda oo rumowday muddo aan dheerayn kadib markii la soo wacay telefoonka maara wicitaan ka soo yeeray bareesh wuxuu rabay inuu ku casuumo maara si uu ula shaqeeyo laakiin maara si adag ayuu u diiday hadda waa uu ku guulaystay dagaalka waxaana uu duulin doonaa dadka masaakiinta ah filimka wuxuu ku dhammaaday isagoona tusaya maara iyo labadiisa saaxiib oo faraxsan oo socda sababtoo ah riyadoodii way ku guulaysteen oo way rumeeyeen